siyaasi aadan xuseen oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska xisbiga kulmiye ee magaalada Burco ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimi xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee wadani eedahaasi oo ku wajahnaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana siyaasi aadan xuseen hadaladiisii kamid ahaa wuxuu dhaliil soo jeediyay ninka lagu magacaabo Tabase wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ku eedeeyay inuu yahay fadhi aan waxba qaban baas miro maxamed waa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland intii uu xilka hayay wuxuu qabtay waxyaabo aad u waaweyn oo runtii sharaf qaranka u ah waxa kamid ah lixda gobol ee Soomaaliland tartankii ciyaaraha Soomaaliland buu ka qabtay gobolka Togdheer tartankii gobolka Togdheer baa laga qabtay Hargeysa waa laga qabtay Awdal waa laga qabtay gobolka Sool waa laga qabtay oo waliba iyagoo leef waa laga qabtay gobolada ay waaweyn rooga yaala oo isagu sharaf iyo karaamada ku lahaa isaga iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa uu qorsheysan gobolada ay kamid yihiin Balagubadli Oodweyne Caynaba garoomadooda inuu hadda dhigo roogii waana u qorsheysantay waxa kale uu duray oo Tabashe wax ka sheegay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland xiriirka kubadda cagta waa hay'ad kamid ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan hubnaa oo aanu cadeynayna ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland iyo caalamka u cadeynayna inuu wasiirku u cadaalad falay horena ugu cadaalad falay xiriirka kubadda cagta ninka la yiraahdo Tabase ee xogayaha ciyaaraha ee xisbiga wadani ah wuxuu yiri wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaruhu muxuu ka doonay ciilafay macaaqilba wasiiradii joogay ciilafay ee Maxamed Kaahin hogaaminayay ee wasiirkan dhalinyarada ciyaaraha kamid ahaa ee shanta bilood nabadeenta gobolada bari u fadhiyay maxaan ku dhaadayay ciilafay hadii aan nabad jirin dhalinyarada ma jirtiin hadii aan nabad jirin xisbiga wadani ma jirin hawsha hayayna sharaf iyo karaamo ku mudan yihiin biladgeysma ku mudan yihiin maalin dhaweyd gobolka Togdheer waxaa yimi jaamac Karaacin iyo xubno isagu wato waxay yiraahdeen xaflad baan qabanaynaa hoodaa halkan la suguti xafladii leedo waa la qabanaya waxay ahayd xaflad gobolka Togdheer lagu burburinayo waxay ahayd xaflad xisbiga wadani soo abaabulay waxay ahayd xaflad xubno xisbiga wadani ka tirsan oo qurba joogi ay dabada ka riixayaan jaamac Karaacin iyo xubnaha la socda waxaan uga digaynaa inay bulshada gobolka Togdheer kala qaybiyaan inay sportiga gobolka Togdheer kala qaybiyaan taasina way ka fashilatay waxaan raacinaya gobolka Togdheer oo Tabase yiri uu ooyay gobolka Togdheer gobolka Togdheer ana jooga isu dawana waa jooga gobol ooyana ma jiro dhibaato gobolka jirtaana ma jirto gobolka Togdheerna waa mid sportigiisuna waa mid waxaana sharafta iyo karaamada iskale isu duwaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer runtii wax badan buu qabtay gobolka wax badan buu ka qabtay si wanaagsan ayuu uga shaqeeyay dhibaato gobolka Togdheer taala oo xisbiga wadani uu wada meeyaan dhibaato kale gobolka Togdheer taala haba yaraatay ma jirto waxa ayaan daraa xisbiga wadani oo runtii xisbiga magaranayay daayar ah inuu maanta halku ku mashquuli lahaa sida xisbiga kulmiye inuu doorashooyin u diyaar garoobo inuu wax umada aafacayo oo horkeena halku ku mashquuli lahaa wuxuu ku mashquulay kala qaybin wuxuu ku mashquulay in dhalinyarada reer Soomaaliland iyo gobolada Soomaaliland kala jooga inuu maalin walba waxa jirin uu saxaafada mariyo waxa qurux badan in aad ka watoodaan hadaa xisbi ahaan wadanatiin kala qaybinta umada ina ka watoodaan Xabiib Ciga Xasan Hon Cable TV magaalada Burco magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah Samtel shirkadda dadweynaha